koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan khiyaartii kalamaaney qarannimadayada kii qoonsadee ka dareen qabee maabkeenna qoran xuduudaha qayaxan qaar inuu tiriyo inuu kala qoqobo qoondaynayo quusaan ku nidhi kenyaatiyow quusaan ku nidhi inta haanta qabadaha qaar ka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay kay qalooc la tahayow annagu quursi diidnaye kay qalooc la tahayo wayno qori afkii horta kaalahaantaan qabyada ilaa 77 baan maqlaya taaka ka qabyaha weli lama dhammaystirin miya wari anti kenya bahana riisadaas haantun qabiyo waa qori afjeyno la kadhima trofadaas war haanta qabyadeeda maxaa ku tusay dastuurkiyaaba qabya jaloway kukuyo iyo kala jimba quustaan idin niri turkaana ma ka reebaysaa war turkiga saaxiibaan nahay jalwa iyo kuukuna maana madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta la yira jeera ku dardare soo joog ninkii laga waaya la yiri soo jiifa laga helaa Uhuru Kenyatta inda kala ma laho badeena u muuqata laakiin waxaan u malaynayaa miduu eed laha inay noqoto kala horta islaantii timaa tabalka wadatay wali badeena ma ku wareegaysa reewa ii mareewo waligee runta ka maroorin waraaqo tabal ay badeena ku qaadato ay raadinaysa war timeedu tabal ma ahan ee waa bililiqo ayay madiga ka haday ummad qaabahan nacab quursigo inaan lagu qaldamin qalabka u sito u qastaanahay quusaan ku nidhi waliyan quursan ku idi maalintii quursan weesid khamshan kan laga tuma horta markaan nimayo waa nala ku soo qatalmay hadayba habari badeena dhic rabto war nimayo hadda ka hor nima abiis xabad ku dhuftay bila kadib nima ilmaadariin dukaankiisu soo galay war yaa iga baxo yiri dukaanka waxba ka gadan maaye inta laabtay istaago wuxuu yiri inta soo qasiyada ma waxa ka keenaya wadaadkii xijaabtay marka adinka hadda intaano xanaaqa ma waxa idinka keenaya mooshinka badeena lagu qaadanaya baarlamaanka Kenya la horgeeyay sayalnaa baarlamaanka Kenya fariin qoraal lagu xiray kii Kenya badeena ciidan hal keenuu leeyahay khalad ninkii galo waa khasaara qunfaanin hayse qayaas male waryaaya waxaa la yidhi afxumo nabadna waa kaa wadaa dagaalna wax kaagama tarto horta hadalka quruxsada war unusaasna araase ya gafxumaa la yidhi geeri aan karan waryaa Kenya nabad kama rabno markaan dagaalnaana dawa noogu horreysay iyo dadnimo naga daawarkeed wareedahana dhagaysta war ma haysiine ogow wiil soo bixiyo dagaalyahan buuxo iyo inuu yahay geesi bira ninkii beri loo yaqiin dadkuna uga baqi jireen mar baa nacas beegsadaa bareer ugu dhiirada wixii sana booliyada bal eega Soomaaliyay Kenyaatigu wuxuu isbaday war may baleeray langi goofa gubi geed walba ina gubi karo ka aale geed salwiina sakiga ma gooyase teesi walaay goro laga galaafood laga gala ka faday Kenya fuy aada la aada inaan nahay hal qoys oon qaybsamayn quud wada cunka noo qaasaho dunida qirsane quusaan ku niri waranna waxaan leeyahay Kenyaatiyo maharagadiyo haday ka dhimatay waalida quusaan ku niri war Kenyaatiina ma hawaysan jirine isqa qabsigayno ka faa'iideysanaya war anigu waxaan leeyahay anigoo libaax laga baqiyo waliba laayana anigoo ciidan loolanaba libin ka soo hooya Afrikada anoo liidaro shidaya leerkooda haddii aan bariyahan leecay oo la xawisaamay kasla ciifay laaciyo haday badatay laakiintu lafa gobolnimo ugu jiriyo xog lilaahiya amiin allah ka aqbala igaarkaygiyo ani Kenya waxaan dhiilay libaax qoy hawmoodi inuu bisad yahay waa libaaxi wallahan Kenya nin loo dilayn gabdho badan baa noo jooga baagumu daaceegan u dilayna bando waa runta ana hogaaminaya gabdhaha war Kenya intaasaan ku soo koobay yaana sii badine dhanka dhuusa mareebay ka shidneede qof kasta oo dhagar geysto dadka dhowrsan qayaana dhibaato ka dhaxlaaye wadaadkii ma dhawaaqay dhaleecayn iyo eedna dhan kale ma saaray hadda waxaad noo akhrisay miyaa warqadda Sheekh Shaakir ee wasaaraha uu ku
eedaynayay ورئيس وزراء غيره حافوا اسكو وريجي لكن حلفadii dhuusa mareen inuu iska wareejiyo looga baahan yahay dooni mayno wallahi han liyeelayni billahi han liyeelayni macna saas leeyahay macna saas dhigi kara hortaba dhagankin ahayd kow haddana widaadiyaha siin bahan sanadka fadwo goole siin fadwoodayan oo dooni maydana lamid ah marka han iyo tabarba malan helo koro warnaga taada han iyo wax ka xun baa warnimay Axmed wuxuu yiri beenta iyo fidnada lagu faafinayo Facebook Jubbaland waxba laga qaadi maayo marka waxaan soo xasuustay sida qolada Facebook oo baadil fidinaysa ama koox fadeexada gadiyo filanka shaydaanka adiga fariid ku ah waran fiirsi loo dhihini faru jeexo beentii haddaan soo fatahayay dhulka oo daruuruhu fadhan filiqna soo saaray cirko foox ku yaaliyo tagaad faraqa laalaadi inaan foogta geediga u rari filima maysaani hafajicin hadalkayga waa faashiyoon gabay maykoo dhimanayay abwaana hafajacina hadalkayga waa faashiyoon warnimaya waxaa la yidhi jacayl 4.5 haddaan lagu qaybsanayn xisbina lagu soo dhisayn isteed goboleed miyay lamaana iscaashaqa xiriir ku samayn karaan yartaan u dabaaldegoon hilowga ku doortay ay taageerada ha iska lumin dastuurkii guurka iyo muddadii laynoo qabtiyo maandaydkii qoysaskoo hortaa lagu kala tegiyo xeer hoosaadkana ha jebin ballamihii meerka iyo bajedka arooskanagu golaha sacabku hor yaal ogow xildhibaanaduna kor bay naga eegayaan wakhtigu waa gabangabee waxaad ballan qaaday shalay adoon fuliyuu dhammaan run baan kugu soo xushay axdigii meelaha uga dhic sida aad u tilmaantay yartu waa mid wanaagsan oo mataalkii cambihii iyo afkaan soo marin mooye amba waygu mudneed haddaase maanta jeclaatay midkayn baa cuni laaye mii kaxaysanayaa maalku doonanayaa waa in aan mulkinaa midigta aan ku dhignaa adna mood iyo nool wixii meesha maalku baxaya waa inaadan ma suugin hadda gooraa sidaas la iigu gebiyo waa soo xasuustay war maxaa duqda jacayl soo maray war ratiga iska tuuri tagta saak war qarixii ay ku dhinteen mas'uuliyiintii gobolka oo duqa magaalada u horreeyey ilaa hadda akhbaar ma laga keenay waa iyadii baaris baa socota lalahay wariyaana soomaaliya dhagan jee goraday geela 70 maalin walba laga aamohay madi dhammaysanna gogol laabaan bes war ka dhamaadi war mag baaban la sheegay maayarkii laga keenay miyaadnaan maqlinta yaa mas'uul ka ahaa eeran lanki ama olooysa ka shakiisnya leeri lanki mag hormar wala meelkoogii widaayay warnin oday ahaa shirbay wuxuuna yidhi duqii magaalo daahirow in la dilaa ku hoos dahsoon dalku galaa dib u celaa dalku galaan dib u celaa dan kalaa ku hoos dahsoon doorasho dawga soo socdaa waan diidnayaa ku hoos dahsoon war haddii macal doorashadii dahsoon tahay shiribkaan kala dhegayso damac iyo dictatoriya daris noqdee dadow ogow war daljirka dahsoon waa aqaana oo boondheer ku yaal doorasho dadbanaan soo marnay mid dahsoon maa la keena haddana iyagoo tubti laga xiro meel la tegi waay tacadiga dadkeennii hayo qaraxa soo taaga oo madaxda lala tiigsadiyo shacabkan taakaysa tawradnimada guud iyo kuwii talada loo dhiibay tacsi waxaan ahayn kama galaan tacajab weeyaan nimayow talaanaanii haayo tawxiidka hayne taqwada iyo tasbiixda waa tirsaheynaa tiirkeen towbada waaye aamiin warbaar dheere islaam bumbooyin tuuraysa miinooyinna ku rakiban yihiin ayaa maanta askartu xabadka horgeeyeena la yidhi hadda waa falshiliyaantii xamarna u wareerisay baar dheere ka dhacda maanta war dadkaanu yaabay leeyihiin qofkii aan dhimashada rabina waa dilayaan kii dhimashada rabana waa dilayaan war gabadha xaa laga hadlaysay naftaaba loo yeelee war duurkii alla keeno dood unbaad ku jirtaane golayaashii deegaanka soo inaan dooranno ma war adiguna duurkii alla keeno golayaashan deegaanka doortabaad nagu waasheeye madan baad ku qabtaa war dandiisa gorday duubkii la ageedlaasii hooba demkasii dumiyo usii eri doona war golayaashii deegaanka dhismahoodu hadda waxay ka socdaan baa layidhi jawhar marka koofi dusha lagaga keena wax kuuma tartee marka dadkii deegaanada maamul lahaa in la dhisaa waa lagama maarmaan hirshabeelle haddii laga sameeyo golo deegaan anuu ayadan hadda anaa kaa badiyey adiga war sharciga ilaalsha war kenya qabta war iska gaylidan kenya ma isku saarnaan iga tagay ugu istaagin anuu kenya maahay war anshaha